maayirka degmada Gabiley maxamed ayaa kala qayb galay naadiga akhristayaasha timacade bandhig Suuganeed ay xalay ku soo bandhigeen suugaanta Abwaanka daadaya ee Amiin Cumar barkhad oo lagu qabtay Hoolka Dawlada Hoose Gabiley munaasabadaasi oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa kale oo ka soo qayb galay dhalinyarta wax ka barata jaamacadaha dalka iskuulada gobolka haween aqoon-yahan kale oo aad u tiro badan maayirka degmada Gabiley oo halkaasi ka hadlay ayaa dhalinyarada iyo naadiga akhristayaasha Gabiley ku soo booriyay inay munaasabadaha noocan oo kala ay kordhiyaan isagoo halkaasi uga ballan qaaday inay ka maamulahaan garab istaagi doonaan markastoo barnaamij noocan oo kala ay qabsanayaan waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay Professor Axmed Sheekh Nuur Ducaale oo kamid ahaa asaasayaasha naadiga akhristayaasha timacade ayaa xubnaha naadiga waqtigan gacanta ku haya ku amaanay sida fiican ee u wadaan isagoo sheegay inay ka kordhiyaan bandhigyada buugaagta iyo suugaantaba gudoomiyaha naadiga akhriska timacade oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay taariikhdii naadigu soo maray ujeedooyinkii loo asaasay iyo halka uu maanta marayo لكن ما توقع من الشيء اللي وطن قميص كثير بعض هيك مركايات نيشن تويس سيوا بقول إنه international transparency أو كشيء سيابا هذه شيء وش يعني يوم ما سبب كتير مركايات اللي نقالي ما سبب كتير يقول الله ما سبب ولا waxay soo qaatay saddex goob koowaad waxay ka dhigeen askarteena taariikhda Soomaaliya waxay leedahay goobta maasoo badan waa askarteena taariikhda horumar aan taagdiyoon duruufta way qofkaas adduunyada loo qabto akhriska timacade Gabiley ayaa noqonaysa kuwii saddexaad ee la wareegay naadigan iyagoo ku soo beegmay waqti maamulka Gabileyna ay haystaan maamul dhalinyaro ah oo xalfadaha kala soo qayb gala waa Cabdirasaaq Axmed ayaan ilka case Bulsha TV Gabiley